بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة Qubrus waa jasiirad dhacda gudaha badda Mediterranean-ka dhanka koonfureed waxa uga beegan dalweynaha Turkiga waa jasiiradda saddexaad ee ugu weyn jasiiradaha ku yaala badda Mediterranean-ka marka laga reebo labada jasiiradood ee kala ah Saqliya iyo Sardiina oo dhamaantood hoos yimaada dawladda Talyaaniga. Qubrus hadda waxaa loogu yeeraa jamhuuriyad waana dawlad xubinimo buuxda iyo aqoonsi ka haysata qaramada midoobay kana mid ah ururka midowga Yurub oo ay ku biirtay sanadii 2004 sidoo kale waxay xubin ka tahay dawladaha isticmaala lacagaha loo yaqaan lira. jasiiradan ayaa dhanka koonfureed uga beegan xeebaha Turkiga waxay u jirtaa ilaa iyo 113 kilomitir halka xeebaha galbeed ee dalka Suuriya ay u jirto 120 kilomitir gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Al-Laadiqiya. sidoo kale Qubrus waxay xuduud badan la leedahay Giriiga, Falastiin iyo Masar. wixii ka dambeeyay burburkii khilaafadii Cuthmaaniyiinta horaantii 900-yadii ayay jasiiradda Qubrus ka mid noqotay caalamiga ah oo qabsaday sanadii 1960kii ayay dowladda Ingiriiska ku dhawaaqday in xorriyadda ay siisay jasiiradda Qubrus balse dhagaraha dowladda Ingiriiska caanka ay ku tahay waxa kamid ah in muslimiinta ay hoos geysto gumaysiga Nasaarada. isticmaalkii Britishka ayaa kala qaybiyay jasiiradda oo sanadadii uu haystay ayuu halkaas ku deegaamiyay dad gaala Giriig ah si muslimiinta cadadkooda loo wiiqo ugu dambeyntiina Nasaaradu ay u noqdaan aqlabiyadda wax xukunta muslimiintuna ay noqdaan kuwa gacan ku gambad ah. dowladda Ingiriiska intaas kuma ekaysanay waxay abaabushay Maleeshiya ah kuwaas oo xasuuq baasan u geystay muslimiinta jasiiradda Qubrus oo xilligaasi noqonayay aqaliyad. qarnigii 20aad ee milaadiga ayay jasiiradda Qubrus martigelisay xasuuq aan kala sooc lahayn oo gaaladu ay u geysteen muslimiinta. maleeshiyaad Kristaan ah oo asalkoodu ka soo jeeda wadanka Giriiga ayaa nolosha ku gubayay haweenka iyo caruurta muslimiinta. boqolaal masaajid ayaa la gubay iyadoona boqolaal kun muslimiin ah ay ka barakaceen jasiiradda oo ay u tallaabeen dhanka Turkiga. sanadii 1974 dowladii Almaaniga Turkiga ayaa ciidamo gurmad ah u dirtay jasiiradda Qubrus oo dadkii lagu gumaadayay ee muslimiinta ah ay ka soo jeedeen dhanka Turkiga. ciidamadii Atraakta ayaa ku guuleystay inay joojiyaan xasuuqii loo geysanayay muslimiinta balse kuma guuleysan in Qubrus ay ka xurayaan gaaladii qabsanaysay. sida taariikhda ku cad ciidamadii Turkiga ayaa xilligaas qabsaday 3 meelood hal meel dhulka jasiiradda Qubrus iyadoona magaalooyinka iyo tuulooyinkii ay deganayeen dadka muslimiinta ay ixtilaashay dowladda Giriiga oo ilaa ay hadda haysata. dhagarihii kale ee dowladda Ingiriisku ay dejisay waxa kamid ahaa qorista dastuur dhigaya in muslimiintu aqaliyad ay ku yihiin jasiiradda Qubrus Gariiguna ay yihiin kuwa aqlabiyadda wadanka. dastuurkaas oo ilaa hadda looga dhaqmo jasiiradda waana mid muslimiinta duudsiinaya xaqooda. sanadii 1983 ayaa lagu dhawaaqay jamhuuriyadda Qubrus waqooyi ee dhanka Turkiga waxaana madaxweyne xilligaas looga dhigay nin lagu magacaabi jiray Rauf Dhankadash. jamhuuriyadda waqooyiga Qubrus ee Turkiga taabaxsan waxa aad u diiday qaramada midoobay ilaa haddana waxay u ictibaarisaa dhul ku jira Turkiga. magaalada Arjah waa caasimadda Qubrus waqooyi ee qaybta muslimiinta waxaana ku dhaqan dad gaaraya 280 kun oo qof halka Qubrusta kale ee Giriiga ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan oo qof. Ibrahim Mohamed Ghaith oo ku sugan Qubrus wuxuu leeyahay masjidka Xaram waa mid haawanaya dacalka koonfureed ee magaaladana lagama maqlo wax aadaan ah isagoo muslimiinta ugu baaqay inay soo laabtaan oo ay dib u soo nooleeyaan sharafkooda. Maalesef bazı camilerde ezan okunmuyor. مع الأسف أكثرية المساجد في الشطر الجنوبي nasiib daro inta badan masaajidda ku yaala dhinaca koonfureed waa ay iska xiran yihiin oo wax adin ah lagama maqlo. waxaan rajaynayaa in muslimiintu ay soo booqdaan masjidkan si mar kale dib looga adimo. يزور المسلمون هذا الجامع ليرفع الآذان من جديد. haddii aan dib ugu laabano taariikhda iftiimaysa ee jasiiradda Qubrus waxay ka mid ahayd dhulalkii uu camimay futuuxaadkii islaamka ee ahdigii saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo dowladihii islaamka ee ka dambeeyay. intii u dhaxaysay sanadihii 27 iyo 28 hijriga asxaabigii jaliilka ahaa Muawiya bin Abi Sufyan ayaa qaaday duulaan uu ku furanayo jasiiradaha kulaala badda Mediterranean-ka waxaana ka mid ahayd jasiiradda maanta loo yaqaan Qubrus si dhabarka looga jibiyo boqortooyada Roomaanka. Muawiya oo xilligaas ahaa waaliga Shaam ayaa fariin u qoray khaliifkii muslimiinta Uthman bin Affan oo uga codsanaya inuu qaado duulaano uu cagta ku marinayo jasiiradda Qubrus oo lahayd muhiimad dhaqaale iyo mid istiraatiiji ah sababtoo ah Qubrus waa dhul leh carro hodan ah oo beerashada ku wanaagsan dhaqaale badan oo ka soo gali Roomaanka. sidoo kale waxay halis weyn ku haysay ganacsiga muslimiinta ee isaga kala goosha badaha. khaliifkii muslimiinta Uthman bin Affan ayaa u idmay Muawiya bin Abi Sufyan inuu furto dhulka jasiiradaha. ghazawaadkii uu Muawiya u qaaday dhanka halka iska galaan qaaradaha Yurub iyo Aasiya waxaa ku welinayay
asxaab ajilla ah waxaana ka mid ahaa abu dharri cubaadata bin saamit abu dardaa shadaad bin aws iyo kuwo kale furashada jasiiradaha qubrus iyo kuwa ku xeeran waxaa ku soo arooray bishaaraadka nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu ibnu kathiir ku soo guuriyay kitaabkiisa al-bidaaya wa nihaaya mujalladka 6. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وحالق وريه إنه يري رسولك صلى الله عليه وسلم وحو إيمان جري قوليغا أم حرام بنت ملحان أو أهيد حاسك صحابيغا عبادة بن سامت راشين أيونا كسوعوني جري maalin maalmaha kamida ayuu u yimid raashin ayayna siisay markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam seexday kadibna wuu soo kacay isagoo qoslaya waxay weydiisay maxaa ka qosliyay rasuulkii Allah wuxuu ku yiri waxaa la i tusay dad umadayda kamid ah oo badda dusheeda fuulaya iyagoo ilaahay dartiis u duulaya aadna moodo inay yihiin boqorro sariiro dushooda saaran markaas ayaa waxay tiri rasuulkii Allah ii weydii inuu kuwaas iga mid dhigo markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam u duceeyay kadibna wuu seexday hadana wuu soo kacay isagoo qoslaya waxay ku tiri maxaad ku qoslaysaa rasuulkii Allah rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa uu ku yiri waxa la i tusay dad umadayda kamid ah oo badda dusheeda fuulaya iyagoo Allah dartiis u duulaya aadna moodo inay yihiin boqorro sariiro dushooda saaran markaas ayaa waxay ku tiri rasuulkii ilaahayow Allah ii weydii inuu kuwaas iga mid dhigo markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri kuwooda ugu horeeya ayaad ku jirtaa ummu xaraam binti milxaan waxa ay ciidankii badda ka duulay raacday xilligii mucaawiya markaas ayayna daabadeedii ka soo dhacday kadib markii ay badda ka soo baxeen oo ay xeebta yimaadeen sidaas ayayna ku shahiiday ud'u Allah an yaj'alani minhum qala anti min al-awwalin فركبت البحر زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر jasiirada qubrus waxay ka mid ahayd meelihii ugu darnaa oo ay ka dhacayeen loolanada u dhaxeeya islaamka iyo gaalada sabab la xiriira iyadoo dhacda goob muhiim ah isla markaasna leh manaafacaad dhowr ah islaamka ayaa jasiiradaas ay dareeyay waxaana si koox ah diinta islaamka u soo galayay dadkii deganaa halka dadka gaalada ee aan islaamin laga qaadayay jizyo qubrus ayaa mar ku dhacaysay gacanta muslimiinta marna ku dhacaysay gacanta gaalada waxayna qayb ka ahayd isbuurashada u dhaxeeyay xaqa iyo baadilka balse dhammaan dawladihii islaamka weligood kama tanaasulin soo dhicinta dhulkaas naga maqan jasiirada qubrus dacalka hadda ku jira gacanta gumeystaha Giriiga waxaa ku yaala masjid 10 qarni jira oo ay dhiseen asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa masjid taariikhi ah oo loogu magac daray asxaabiyada xaraam oo ahayd habayrta nabiga sallallahu alayhi wasallam ee dhanka nuugmada kana mid ahayd ciidamadii muslimiinta ee furtay dhulkaasi إبراهيم محمد غيث وحو كمid yahay jaaliyada muslimiinta ee wali ku nool Qubrus wuxuu ka sheekeynayaa masjidkan iyo taariikhdiisa facaweyn أم حرام annemiz أمنا أم حرام جاءت إلى هنا منذ قرون hooyadeen ummu xaraam bintu milxaan ayaa qarniyo badan ka hor halkan timid iyadoo rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam uu ugu bishaareeyay in jasiiradan la furan doono halkan ayayna ku shahiiday kadibna muslimiinta ayaa jasiiradan yimid oo ku faafiyay diinta islaamka هذه الجزيرة ونشر الإسلام khulafaa raashidiin kadib waxaa futuuxaadka islaamiga ahaa ee mandiqada oo idil sii waday dawladihii islaamiga ahaa oo jiilba jiil uu raayada ku simayay dawladii umayyiinta ayaa mar kale dib u soo celisay Qubrus iyo jasiiradaha ku dhowdhow oo ay kamid ahayd jasiirada loo yaqaan Rhodes ee hadda ku jirta gacanta Giriiga dawladii Uthmaaniyiinta ayaa ahayd dawladii ugu waqtiga dheereed ee soo maamushay dhulka Qubrus khulafadii Uthmaaniyiinta ayaa ka hirgeliyay Qubrus qalcado waaweyn oo muslimiinta laga difaaco iyo masaajid iyo sidoo kale xarumo dhanka maamulka ah taariikhda dahabiga ah ee futuuxaadka islaamiga ah Qubrus waxaa ku cad in dawladii mamaaligta ee maamul jirtay Masar iyo Sham ay marcagta marisay gaaladii Qubrus ayna dib ugu soo celisay gacanta muslimiinta amiirkii mamaaligta ayaa 10 doonyood waxa uu ka buuxiyay ciidamo mujaahidiin ah oo aad u fara badan wuxuuna u jeestay dhanka Qubrus si uu sanka dhulka ugu jiido gaaladii Roomaanka taariikhyahanadu waxay sheegaan in xamladaas uu qaaday amiirkii dawladda mamaaligta ay lahayd qiso cajiib ah taas oo ahayd in markii ciidamada muslimiintu ay dhaqaaqayeen tiradooda oo badan awgeed la waayay doonyo lagu qaado talaabadaas oo khilaafsan waaqicaan maanta la noolnahay ee ah in dadku ay jihaadka faradka ah kadib dhacayaan في الثاني من شهر رمضان عام 829 هجريا خرجت حملة أرسلها السلطان الأشرف بارسباي وقادها 4 من أمراء المماليك labadii bishii ramadaan sanadkii 829 hijriyada
waxaa soo dhaqaaqay ciidan uu soo diray suldaankii la oran jiray ashraf baresbay. ciidankaas waxaa hogaaminayay 4 ka mid ah amiiradii mamaaliigta iyagoo watay tiro aad u badan oo maraakiib ah. waxa ayna maraakiibtu usoo dhaqaaqeen dhanka jasiiradda qubrus iyadoo ay saaran yihiin ciidamo mujaahidiin oo aad u fara badan. qaar kale oo kasii badanna waa laga soo tagay kadib markii loo waayay gaadiid lagu qaado. balse alla mahadii ciidankii mujaahidiinta waxay ku guuleysteen inay jasiiradda qubrus furtaan, gaaladiina ay jebiyaan. sidoo kalena waxay soo afduubteen boqorkii gaalka ahaa ee halkaasi maamulayay. waxa ayna u soo qaadeen dhanka magaalada qaahira. sidaa ayayna qubrus ku hoos timid dowladdii mamaaliigta. taariikhyahankii noolaa xilligaas ee ibnu takhriib badriki ayaa arrinkan ka yidhi muslimiintu aad ayay ugu farxeen furashada qubrus. markii uu suldaanka mamaaligta maqlay arrinkaasna farxad darteed ayuu la ooyey, dadkiina oohintiisa ayay la ooyeen. wuxuuna suldaankan badin jiray shukriga iyo u mahadcelinta allah. عظيما. وحينما علم بذلك السلطان المملوكي بكى من شدة الفرح وبكى الناس لبكائه وصار يكثر من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. warbixinadii ugu dambeeyay ee laga aruuriyay jasiiradda Qubrus ee ixtiraalka ku jirta waxay sheegayaan in dib u dhac ballaaran oo ku yimid dadka muslimiinta ah ee aqaliyada sii noqonaya sabab la xiriira dowlad Griiga oo cadays dhan walba ah saartay dadka muslimiinta ah. hay-adaha waxgaalaysiya ayaa ku luga fisaday jasiiradda si muslimiinta diinkooda ay uga fidneeyaan. dowladda ay Qubrus ka jirta waxay ku noolaanaysaa kamid ahaanshiyaha midowga Yurub, waxaana kamid ahaanshiyahaas lagu sheegaa mid siyaasadeed sababtoo ah Qubrus waa dhul dhaca qaaradda Aasiya. ku soo dhawaada channelkayga Mucjisati. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar siina share garee.